muddo lama bilood ee kureet mayba dib informay geega xafiiska gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cabdullaahi Maalin Sufurow xili bilowgii Abriil iyo May saameyn jeysada webiga Shabeelle ee ka fatahay magaalada Beledweyne Xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cabdullaahi Sufurow mayba markii in ka horay xafiiska ka qaabilay wakiilka hay'adda UNID ee Master Janatal oo hay'ad ku shaqeeyda horumarinta warshado yaryar iyo mashaariic kale lamaada mas'uul mayba kuwada dahobeena sidii lan hormariyay lahaayay warshado yaryar iyo saameynta injeysadii webiga Shabeelle ganacsatada magaalada Beledweyne ka dhaqan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cabdullaahi Maalin Sufurow yaa mayba ku dahobay heshiisyada dhexmaray hay'adda UNID iyo saameynta injeysadii webiga Shabeelle xafiisyada heer gobol iyo kan degmo la'ajli xafiiskii ama xafiisyadii heer gobol iyo heer degmo oo markii halkan ay ka dhacday biyo-baxadii dib aan u howl bilownay maanta waa maalintii saddexaad oo xafiiskan uu shaqeeyo gobolka nasiib wanaag waxaan maanta halkan ku qaabilnay wakiilka hay'adda UNID Soomaaliya Mr. Jonathan oo aan leenahay soo dhawow hay'addaasi waa hay'ad ka shaqeynaysa ama nagala shaqeynaysa ama wax nooga qabanaysa dhanka dhalinyarada iyo dadka suuqyada yaryarka ah inay ka macaashaan rabo waxay noo sameynayaan dhanka beeraha iyo noo sameynayaan warshado yaryar xagga qudaarta suuqyada warshado yaryar ayaga laftirkooda ka qayb qaadanaya dalkan ay dhaqaalahooda ay kordhiyaan waxa kale ay naga qayb qaadanaysa hay'adda UNID sidii noo sheegtay inay dhalinyarada noogu sameeyaan dhaqan celin iyo isdhexgal iyo maaragtay inay dhankii ay kaga baaqsan lahaayeen ama tahriibta ama acmaasha kale oo dhinaca kale ay u shaqo tagi lahaayeen waa uga mahad celinaynaa horaan uga ballansanayn biyo-baxadii aan kala fogeysay falilah alxamdu dib ay noogu soo laabteen maantana waxaa tii hore iyo mashaariicda hore ka dheeriya ay noo ballan qaadeen inay dhibaatadii ay geysatay biyo-baxadu oo ay u geysatay ganacsiga oo ay u geysatay iskuullada oo ay u geysatay maaragtay xagga caafimaadka wadooyinka beeraha intaba in wax nagala qabanayaan wixii ayagu ay awoodi karaan ay wax nagala qabanayaan wixii hay'adaha kale ee UN-ka ama caalamka ay naga gaarsiin karaan ay naga gaarsiin intaas noo ballan qaadeen Mr. Jonathan waxaan rabaa marka inaan fursadan kaga faa'iideysto meeshan haddeer wuxuu u egtahay meel la imaan karo laakiin shalay maahana daraad waxay meel burbursan biyihii ayaa waxay dhibaateeyeen dhammaan magaalada Beledweyne hadday ahayd maamul iyo hadday ahayd xafiisyo hadday ahayd iskuullo hadday ahayd caafimaadka hadday ahayd ganacsiga dhibaatadii caamka ah magaalada ku habsatay ayaa maaragtay meeshan ka mid ahayd hadda waan jajafanay waxaan rabaa marka inaan iraahdo waa meel shalay maahana daraad baabacsan maantana waa meel lagu shiri karo iyadan laftirkeeda hadde war dadka waxa loo qabtaan dhehayne in xafiisyada maamulka iyo xafiisyada hay'adaha nabadgelyada wax laga qabto oo iyaga laftooda nala ka saacidana insha Allah baaqas waa dirsanaynaa sidoo kale wakiilka hay'adda UNID Master Jonathan yaa mayba ku dahobay heshiisyada wada dhexmaray gudoonka heer gobolka Hiiraan and I want to say thanks to the government of Japan for the financial support for our project focusing on youth employment and conflict minimization. So we're very pleased to be moving ahead now and also at the same time finding ways to support post-flood recovery in Beledweyne. Thank you. Thank you. Abdinaasir Jagali, TV-ga caalamiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Beledweyne.